Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Tobanka qaanuun ee ugu la yaabka badan dunida. Qaanuun ama xeer waa nidaam wax kala haga oo qof kasta u cadeeya waxa lagu leeyahay iyo waxa asaga uu leeyahay. Haddaba qawaaniinta waa labo, mid samaawi ah oo Allah subxaanahu wa tacaala uu sameeyey iyo mid basharku samaysteen. Sharciga Allah ugu talagalay in lagu maamulo adduunka waa mid aan duugoobeynin oo aan baaliyoobeynin, goob kasta iyo zaman walbaba ku habboon in lagu dhaqmo. Waxaa jiro sanadahan dambe gaal iyo muslimba in lagu waashay waxa loo yaqaano sharci dejin loona samaystay golayaal hawshaasi qabta. Waa waxa lagu magacaabo baarlamaan. Haddaba waxaa dhacda 1001 jeer in ka badan in ay sameeyaan qaanuun qariib ah, haddana ay bedelaan sababtana ay ku sheegaan wuxuu la jaanqaadi waayey waaqica oo waxaa lagu qasbanaaday in la bedelo. Dunidani aan ku noolnahay waxaa ka jira xeerar kala duwan. Waxa gudaha dalka Soomaaliya xalaal ka ah ayaa waddan kale xaaraan ka ah. Dhanka kale haddaanu nahay Soomaali waan socod badan nahay oo waxaa laga yaabaa ama inta badan dhacda in aan ku dhacno dembi marka loo eego dadka aan guryahooda ugu tagnay annaguna uusan agteena dembi ka ahayn. Haddaba halkaani waxaan kugu soo bandhigayaa 10 qaanuun ee ugu la yaabka badan caalamka si aad ugu taxadirto inaadan ku dhicin. Nambarka 10aad, haddaad ku nooshahay wilaayada Victoria uuna kaa xumaado leyrka gurigaada ku jira, adiga gacantaada ha ku bedelin. Waxaa lagu tiriyaa wilaayada Victoria ee dalka Australia gobolka ugu dadka badan. Haddaba gobolkaasi waxaa ka jira xeer dadweynaha u diidaya in ay gacantooda isaga bedelaan leyrarka ka xumaaday. Waxaa bedeli kara shakhsi koronto-yaqaan ah oo weliba fasax u haysta in uu leyrkaasi xumaaday bedelo. Haddii aad ku xadgudubto qaanuunkaasi waxaa lagu ganaaxayaa lacag $10 ah. Nambarka 9aad, Milano. Dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Milano ee dalka Talyaaniga waxaa qasab ku ah inay dhoola cadeeyaan marka laga reebo tacsida ama janaasada iyo marka aad booqanayso qof xanuunsan. Goobaha dadweynaha isugu imaado sida suuqa, maqaayadda, goobaha waxbarashada, goobaha cibaadada iyo meelaha laga raaco gaadiidka dadweynaha, haddii lagu arko adigoo afka tuuraya waxaad mudan tahay in lagu ganaaxo. Nambarka 8aad, wilaayada ama stateka Florida dhuuso waa ka mamnuuc. Maalin kasta oo Khamiis ah galabteeda saacada markay gaarto 6 galabnimo qofkii ku dhuusa ama xagga dambe ka neefsada asagoo jooga meelaha dadweynaha ku kulmaan waxaa lagu ganaaxayaa qadar lacag ah. Arrintan qariib ma ahan, waxaan garanayaa gobol ka mid ah dhulka Soomaalida haddaad ku dhuusto goobaha dadweynaha lagu kala cararayo oo cid dib dambe kuu salaami doonin. Nambarka 10aad, laguma dhex geeriyoon karo gudaha xarunta baarlamaanka Ingiriiska. Subxaanallah, qaanuunkani waxaa lagu tiriyaa xeerka ugu nacsan ee ay soo saaraan baarlamaanka Ingiriiska. Ma suuragal baa in bini aadam uu u xadido malakul mowt meeshii qof nafta ugu qaadi lahaa. Dhanka kale maxaa lagu cinqaabayaa shakhsigii ku dhex dhinta xarunta, sideena loo cinqaabayaa? Nambarka 6aad, dalka Thailand waxaa sharci darro ka ah inaad gurigaada ka baxdo adigoo bilaa buumo ah. Waxaa waajib kugu ah in sarwaalkaada aad ka hoos xiratid dharka hoose. Nambarka 5aad, Faransa waxaa u qoran qaanuun diidaya in la guursado qof dhintay. Nambarka 4aad, Oklahoma waxaa ka mamnuuca dameeraha in ay dhex jiiftaan barkad yar ee musqusha. Wilaayada Oklahoma saacada markay gaarto 7 galabnimo qofkii u ogolaada dameerkiisa inuu dhex seexdo barkada yar ee suuliga wuxuu khilaafay qaanuunka, wuxuuna mudan yahay in la ganaaxo. Nambarka 3aad, Canada. Shantii hees mid waa inay ahaataa hees Canadian ah. Canada waxay soo saartay qaanuun ku waajibinayo idaacadaha maxalliga ah ee baahiya wararka iyo heesaha inay ahaato shantii hees mid ka mid ah hees Canadian ah. Warbaahintii khilaafta xeerkaasi waxaa ku waajibaya ganaax. Nambarka 2aad, dalka Switzerland waxaa ka jira qaanuun u diidaya dadweynaha in ay musqusha biyo ku furaan kadib marka ay ku xaajo gutaan. Saacada markay gaarto 10 galabnimo qofkii khilaafay xeerkaasi wuxuu mudanayaa ganaax. Nambarka 1aad ee ugu dambeeya,
dalka Jabaan buurnida waa sharci darro. Jabaaneeska waxay caan ku yihiin lagdanka loo yaqaan Samu ka oo ay ku tartamaan dadka burburan. Waa dhaqan dadka Jabaaneeska ah aad u jecel yihiin. Haddaba sanadkii 2009 Jabaan waxay soo saartay qaanuun dadweynaha u diidaya in ay cayilaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay kanaalka subscribe saar.